السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دhammaan waan wada salaamay asxaabta ku xidhan kanaalka. Ramadaan mubaarak. Maanta waxaan casharkeena aan u noqon doonaa inaan sameyno network protocolska kala duwan inaan muxuu ahaydeniya halkan ku qaadan doono. Midka ugu horeeya aan qaadan doono waa midka loo yaqaano routing information protocol ama RIP-ka loo yaqaano. Ama routing information protocol ama sida loo soo gaabiyo dadku badankoodu u yaqaanaan. Protocolka ugu horeeya maanta aan qaadan doono wuxuu noqon doonaa protocolka routing information protocol oo loo yaqaano RIP. Haddaba RIP wuxuu leeyahay static iyo dynamic. Mid static ahaana iyo mid dynamic ahaana. Horta theory ahaan oo dhan waxaan oo dhan inama khuseeyaan waxaan oo dhan iska soo dhaaf. RIP version 1 RIP wuxuu kala baxaa daba laba version. RIP version 1 waxaa loo isticmaalaa uses local broadcast baa loo isticmaalaa to share route information. Inay local broadcastigu ay u share karayaan routing informationka. Those updates kaasoo lagu update gareynayo period on natural according 30 second ahaana lagu according gareynayo. Labada version ee RIP ku leeyahay haddaba waxay isticmaalaan hub count isticmaalaan oo limited u ah 15 RIP version 2 haddaba muxuu qabtaa isagoo distance factor routing protocol way. Waa distance-ga factor-ka u dhexeeya routing protocolska. Multicasting iyo wuxuu leeyahay broadcasting. Marka inagu waxaan qaadan doonaa RIP version 2-ga iyo frontigiisa iyo waxyaabo dhan iska dhaaf network routing. Haddaba RIP wuxuu kala baxaa labo waa static iyo dynamic. Ka dynamic waa process buu maraa oo routerku forward data oo different routers u kala dirayo oo destination lagu gaarayo. Static-guna wuxuu sameeyaa waa isagu wuxuu sameynayaa routerska inbuu manual configuration routing enter manual configuration geliyo inbuu isagu qaadanaya bas. Ma sameynaya muxuu ahaydeniya inuu broadcasting sameeyo. Dynamic iyo static maxay kala duwan yihiin? Dynamic haddaba wuxuu noqon karaa waa mid suitable ku ah for large network. Large network bas loo isticmaali karaa. Halka dynamic loo isticmaali karo static loo isticmaali karo small network. Dynamic haddaba wuxuu kaga advanced yahay kale wuxuu knowledgeable require wuxuu baahan yahay aqoon yar buu baahan yahay kan kalena no extra knowledgeable waxa uu baahan isagu waa la sameynayaa. Midka kale ku kala duwan yihiin waxa weeyaan inuu sameeyo transferring packets kan kalena halkuu packet-ada au network administration intuu qoran isagu uu qabanayo. Haddaba configuration-kiisa san buu noqon doonaa kan dynamic aan qaadan doono. Router version 1 version 2 baan inagu isticmaali doonaa. Version ugu horeyn markaan application-kan Cisco packet tracer-ka lagu sameeyo network-kiisa inaan mana laba router baan soo qaadaynaa. Labada router waxaan sameynaynaa laba router halkan switches-kana labaan qaadaynaa. Laba switch baan halkan qaadaynaa. 4 kilomitirna iska soo qaadaynaa. 4 kilomitir kabacdi xadhig baan iska xidhaynaa xadhkii. Markaan xadhkaha ku xidho waxaan sameynayaa kale xadhkaha markaan ku xidho inaan network-yada ku kala dul barto yacni mid walba network aan isticmaalayo IP address-kan isticmaalay mid walba. Kamaan imanaya halkan waxaan iska isticmaalayaa galasuma iska isticmaali 10.0.0.0 xadhka inta u dhaxeyn isticmaali kana 20 baan iska isticmaali kana 30 oo kala tusaale ahaan 30 marka haddaba halkaa runta joogto waxaan soo galanaa router-ka koobaad. Waxaan u baahanahay markaan in interface-kiisa horta soo kicin intaan shaqo kaleba qaban intaan qaban inaan soo kicino muxuu ahaydeniya interface-kiisa. Config intii baan odhanaynaa gigabyte interface-kaas muxuu noo yahay interface-ka router-kaas inay 0/0 kaasaan qaadaynaa 0/0 IP address baan odhanaynaa. IP address
20 baa noo qalatay 0.0.0.1 255.0.0.0 noo shutdown interfacekaas saasaan kusoo kacsanay interfaceka kalaan galnaa inta gigabyte 0/1 odhanaa IP addresskiisuna uu noqonayo 10.0.0.0.1 255.0.0.0 noo shut labada interface haddaba saas ayaynu kusoo kacsanay routerka kalaan aadaynaa routerkan labaad isna interfacediisa soo kacsan si fiican aad u wada aragtid interfaceka markaan soo galno waxaan sameynaa wuxuu inoo yahay inta gigabyte waxaa dhanaa inta gigabyte 0/1 buu inoo yahay IP addresskiisa la siinayo 30.0.0.1 255.0.0.0 noo shutdown kanna interfacekiisa aan soo kicinay si aad u wada jeedin interfaceka labaad baan aadaynaa 0/0 inoo ah intii baan odhanaa gigabyte 0/0 IP address waa 10.0.0.2 maadaama kii hore 1 aan siinay 255.0.0.0 noo shutdown iminka baalku inoo wada diyaarsan si aad u wada jeedin interfaceyadii oo dhan waan soo wada kicinay intaas sameeyay marka intaas sameeya waxaan samayn doonaa inaan kombiyuutarada IP addresska soo gashado copy desktop IP address halkan kusida .2c halkana san halkana sidan kusida .1 maadaama gatewaygiisu wanaha kan kaleymo IP addresska kusida 3c kusida gatewaygana waa noo fadhiganaa maadaama wan aan usoo sheegnay labadan saasaan u geliyey kan kalena 20ga baan gashanaya isna kombiyuutarada kalena 20ga maadaama si hadhow baan u gelinba 20.2 iska sii sida camera wasacad 1 maadaama gatewayga waan ahaa kan kalena waxaan sameynaynaa inaan isna sidii 3 gatewayguna 1 buu ahaa bas iminka saa inoo diyaarisay iminka waxaan samayn doonaa inaan routerkan soo galno markaan saa soo galo waxaan sameynayaa inaan idhaaho router waxaan isticmaalayaa RIP versionkiisu yahay 2 version 2 networkiska ku xidhan ay kala yihiin 10.0.0.0 ka kalena uu yahay 20 halkan 20 ka dhig 20 no auto summary bas kan intaas uu ku yahay ka kale routerka kale haddana soo galaya sidii si lamid aan u sameynaya isna router baan odhanayaa waxaan isticmaalayaa RIP versionkii slash laga raacay RIP versionkiisu yahay version 2 networkiska ku kala xidhan ay noqonayaan 30.0.0.0 networkan 10ka markaan iminka u sheego durtadii waxa soo boodi doona inay adjacent yeesheen no auto summary iminka haddaba markaan intaa qabanay waxaan samayn doonaa bal inaan tijaabino inay isku diri karaan messageska kombiyuutarada labada dhinac ku kala xidhan kombiyuutarka maan ka dirayaa kombiyuutarka maan dirayaa bakadkii koowaad uu lumay oo kaasi waa iska caadi bakadka koowaad uu lumaa midka labaad iyo midka afraad iyo saddexaad lumaan buu qalan meesha ku jira markaa kamaan ka dirayaa kamaan dirayaa successful eewaka iminka sidaa maxaan ku sameynay inaan protocol isku barno labada kombiyuutarada labada dhinac ku kala xidhan haddaan tijaabino fariinta haddaba siday u mareysa xataa fariin baan ka dirayaa kama usoo diray ma
aan tijaabin haddaba meesha marisay kow halkaasay martay switchka markay aado switchku iska sii dirayaa routerku diraya routerkana maadaama kan kale ay yihiin muxuu hayday inay neighbor ay yihiin kan buu sii diraya isna kan markuu soo diro kanna markuu fariintii aqbalay inay destination isaga ka mid u socoto wuu aqbalayaa fariintii halkan buu soo dirayaa kabacdi wuxuu dirayaa networkii ay u socotay fariintu kabacdi fariinta tick baa la saaraya inaa la helay markuu soo jawaabo kani maadaama fariintii la helay kanuu soo jawaabaya dariiqadii buu soo marinaya sidiisi lamida maadaama waxaa la eegaya inay dariiqadu xun tahay inay sax tahay markuu computerka hele tick baa la saaraya computerkii waa helay oo kaa tick buu saaray maadaama fariintu sax tahay destination sax martuu destination all destinations wada shaqeynayaan fariinta tick baa la saaraya haddaba maanta cashirkeena intaasaan ku dayn doonaa haddii ilaahay idhaaho brotokoolada kale ka duwanaya muxuu hayday HRP OSPF muxuu hayday brotokoolada brotokool waxaa noo socda koobin kan oo u baahan doona more configuration la sameeyo insha allah maanta cashirkeena intaasaan ku dayn doonaa haddii aad ka heshay videoga like saar channelkana soo bir subscribe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khayr baan wada rajeynayaa